بسم الله. برنامجكani waa barnaamijkii noo socon jiray ee ah daweynta dabeecadda ama dhibic dhaqaale ama health environmental education. kelmadda haddii la tujubo waxay noqonaysaa uun daweynta dabeecadda. marka dabeecaddii ay meeqaa soo gelaya, dhagaxu ma soo geli, buuruhu ma soo geli, dabayshu ma soo geli. okay, ikhyaara idinka idin daayay. barnaamijkani waxa weeyaan waa daweynta dhirta. kan waa basal, kan waa xabba sawda oo maraq laga sameeyey iyo siid dhowr iyo toban kala ah. kan waa shaahii afrikaanku jeclaa iyo carabuhu waddankooda aan ka bixin inta badan. kan waa xabba sawda iyo flaxseed, lavender iyo xisaab kaloo la isku shiiday. kan waa canab, kan waa kafay, kan waa dhir meeshan aan ku beeray oo soo biqlaysa. kan waa saytuun. kuwan waa bokoskii aad arkaysaan. shaahan meesha aad ka cabi jirteen anuu ma cabayo iminka. shaahan bokoska waxaan ku shubayaa insha allah biidnillahi kariim. waxaan ku shubayaa macal caarada iyadoo ku jirta. waxaan ku shubaynaa ciid kala duwan, mid madow, mid cas, mid nooc kale ah. waxaan ku shubaynaa doog ama caleen sida ubax bahalkaa qoyan. ubax baan ku shubaynaa, ubax qayliin ah ama bislaaday. waxaan ku shubaynaa canabkaa bislaaday oon ka dharagnay oo waxaan siinaa aan garan laanahay, soo ciil ma ah. waxaan ku shubaynaa kafayga aad arkayso, isagoo nus kafay ah ama isagoo aan shiidnayn ama isagoo la shiidaan ku shubaynaa. okay, hadda canabkaas waxaynu ku tijaabinaynaa bal meeqaa ku jirta intaa meeqaa ku jirta oo biyo ah. halkii xabo meeqaa ku jirta xisaabay. maxaa inoo diiday inaan baranno soo inaga qabiilkan gaarsiina boqolka hebel. okay, soo inaga qabiil ka shaqeyna maalin kasta haddaan baran lahayn quraanjadaasi meeqa lugay leedahay, meeqa xaad bay leedahay, meeqay ku dhashaa, ayaa ka ficnaan lahayd. xisaabtan waxaan u carbinayaa waa dawada geedka canabka aad arkaysaan. canabkan yaan dib ugu celinayaa canabkii sanadka dambe dawadiisii. tan waa basal la shiishiiday. okay, tan waa caleentii. tan waa siid fara badan. kan waa dhaylo. waxaan u qalayaa geedkan waa saytuun maaha, waa lows beeray oo weyn ayaan u qalayaa maanta. kan dhaylada ah ayaan xididkiisa iyo caleentiisa yaan ku darayaa. waxaan u qalayaa kii weynaa waa dhaylo lowskii weynaa loo qalayo. xisaabahan aad arkayso ayaa laysku darayaa. kabacdina bokoskaasaa lagu shubayaa. kabacdina bac baa la hoos dhigayaa, korkaa laga daboolayaa, waa la daynayaa ama ciid intii la qodo intii meel la qodo ciid korka laga tabaynayaa, halka sidii xabaashii biniaadankii loo xabaalaya. xisaabtanna waa xabasoodo arki jirta biniaadanka lagu daweeye, xabasoodo dhirta lagu daweeye. halkan waa hambadii. okay, xisaabtaa isku wada jirta oo noocyo badan ah ayaynu sanadka dambe u carbinaynaa geedkii canabka ee dhalay oo kaad arkaysaan ah. ikhyaaray maxaa inoo diiday inaynu gobkeenna iyo garaskeenna iyo kedigeenna inaynu ka samayno, aynu carbino, aynu baranno maxay jecel yihiin, dawaday jecel yihiin. ikhyaaray barnaamijka jaamacadda cagaaran weeyaan. barnaamijkaasi geed kasta oo degaankiina ku yaala ayaynu carbinaynaa. ama 3,000 oo shay buu qaadan karaa oo dawaa oo fitamiin mise ka badan mise ka yar. maxaa inoo diiday barnaamijka? haddaba haddaan dhinto barnaamijkaas la socda 3,000 times 3 oo lagu tijaabinaya degaanka waa dhammaystirka gaajada, qurmoonkeeda iyo xeesheeda iyo xirfadeeda. haddaba saynu aynu uga badbaadnaa dhaan dabagaalle. ha u qaadanina hal meel keliya. dhaan dabagaalle wuu macno badan yahay. corruptionka oo dhan, musuqmaasuqa, beenta, khayaanada, show offka iyo wixii soo raaca ee xuruufta xaaraanta oo dhan baa soo gelaya kuliyadda dhaan dabagaalle qaybteeda xun. dhaan dabagaalle qayb fiican baynu geli doonaa. asalaamu calaykum ikhyaaray.